wax dareen ah ha siinin diidmada ma lagu diiday dhoola cadee oo markaas iska dhaaf ku soo dhow barnaamijka baraarug waxaan ahay Cabdishakuur Maxamed Xarbi ma u malaynaysaa in noloshaadu adag tahay ma u malaynaysaa inaanad guuleysan karin sababtuna ay noqotay inaad faqiir tahay amaba aanad haysan hanti kugu filan si aad u guuleysato ama aad u gaadho meeshii aad doonaysay haddaba ha iga tegin ila soco sheekada Oprah ayaa waxay noqonaysaa mid xiiso badan taasoo markaasi noqon doonta mid inoo cadeysa inaan nolosha meel fog in la gaadhaa aanay ku xidhnayn bilowga hore waxaad haysato laakiin si ku xidhan tahay dadaalka aad samayso Oprah waxay ka dhalatay qoys faqiir ah aabaheed iyo hooyadeed had iyo jeer way isdagaali jireen ilaa markii dambeba ay isfureen markii dambena waxa loo geeyay ayeedeed si ay markaa ula noolaato muddo kadib ayaa waxaa dib ayeedeed ugu soo celisay hooyadeed laakiin nasiib xumo Oprah may haysan markaa dareen iyo markaasi daryeel hooyanimo ay hooyadeed u fidiso taasoo markaa keentay nolol adag ay waajahdo iyo weliba dhibaatooyin badan waad garan kartaa haddii hooyada ama waalidka aanay markaasi ku wacnayn Oprah markaas waxay sababtay in markaas ay barato daroogooyinka iyo maandooriyaal si ay markaas isku dhaafiso nolosha adeegeeda iyo niyad xumaantan ay mar walba ku nooshahay Oprah waxaa loo soo wareejiyay aabaheed si ay markaas ula noolaato inkastoo aabaheed ahaa nin aad u adag haddana wuxuu ku caawiyay in markaa ka joojiyo daroogooyinka iyo maandooriyiinka ay markaa Oprah Winfrey ay isticmaali jirtay sidoo kale wuxuu ku caawiyay in mustaqbal wanaagsan uu sameeyo Oprah waxay heshay shaqo wareennimo markaas ay TV kaga shaqeynayso muddo kadib nasiib xumo waa laga eriyay Oprah iyadoo loo sababeynayo inaanay ku habbooneyn inay ka shaqeyso telefishin sidee dareemi lahayd haddii lagu sheegay inaanad hawsha qaban karin hawsha aad doonaysa inaad qabato isla markaana uu kuu sheego qof khabiir ku ah mihnada aad adigu doonayso oo aad ku jeclayd oo ku dhaho matii dadkii u samaysanaa inay qabtaan hawshan run ahaantii niyad jab ayaynu badankeenu dareemi lahayn laakiin Oprah may niyad jabin manay rajo dhigin laakiin dadaalkeeda ayay sii wadatay sidee ayay guusha haddaba ku gaadhay muddo kadib Oprah waxaa lagu casuumay inay martigeliso barnaamij bandhig ah oo markaasi ka baxayay telefishin kaasoo markaas soconayay 30 minute muddo sanad ah barnaamijkii markuu soconayay barnaamijku wuxuu noqday mid aad u caan baxa oo aad dadka uga helaan waqtiga ayaa loo kordhiyay oo waxaa laga dhigay barnaamijkii 30 minute ahaa 1 saac ayaa laga dhigay intaa kadib bandhigii waxaa loogu magac daray Oprah Winfrey Show oo markaa ah bandhigii Oprah Winfrey muddo yar kadib ayuu wuxuu noqday mid aad caan uga noqdo Mareykanka oo dhan iyo dhammaan caalamka gaar ahaan inta af Ingiriisiga fahanta ay ku hadasha wuxuu barnaamijkaasi noqday mid aad dadku u daawadaan sidoo kalena Oprah waxay noqotay mid ka mid ah dadka aadka ugu caansan Mareykanka iyo adduunka oo dhan iyadoo markaa barnaamijkeeda aad ka loo xiiseeyo muddo yar kadib ayuu waxay ku noqotay billionaire sidoo kale waxay ka mid noqotay dadka dumarka aadka u tirada yar ee martabada billionaire-nimo lagu tiriyo caalamka waqtigan aan imika joogno sidoo kale waxaan kuu sheegayaa in dadka guuleystay badanaa la kulmaan diidmadan iyo mid ka daran iyo weliba mid aad uga xun weliba waa wax caadi oo bulshada markasta ka dhex dhaca laakiin waxaa lagaa doonayaa inaad dadaalkaaga iyo meesha aad u socoto mar walba ay ku cadaato casharada aan ka baran karno Oprah Winfrey wax dareen ah ha siinin diidmada ma lagu diiday dhoola cadee oo markaas iska dhaaf waayo markastoo aad hore u sii socoto waxaad cadeynaysaa oo aad u sheegaysaa dadkii ku diidanaa oo aad u sheegaysaa inay qaldan yihiin waxaan kuu sheegayaa dadka khibradda lehi waxay khibrad u leeyihiin mihnada ay khibradda u leeyihiin macnaheedu waxay tahay Oprah ninkii diiday wuxuu ahaa nin khabiir ku ah warbaahinta wuxuu markaas khabiir ku ahaa warbaahinta laakiin khabiir uma ahayn Oprah oo mu aqoon nafteeda ciday tahay dadaalkeeda waxay qaban karto iyo waxaan qaban karin adiguna sidaas la mid ah haddii qof khabiir ah ku diido waxa laga yaabaa inuu ka sheekeeyay waxaan uu khabiirka ku yahay laakiin adiga naftaada khabiir uma aha sida Oprah ay u beenisay khabiirkaas ku yiri ma qaban kartid adna sidaas la mid ah samee oo hore u soco adigoo markaas dadaalkaaga laba jibaaraya raac riyooyinkaaga ha joogsanin ha u joogsanin adigoo u sababeynaya waxyaabo imika kugu xeeraysan
dhaqaale darro, daryeel la-aan, deegaanka oo kugu xun, ama goob dagaal ama waxyaabo kale oo aan wanaagsaneyn oo markaa keeni karta qofku inuu ka joogsido ama uu ka istaago meeshii ama horumarkuu sameyn lahaa. weligaa cudurdaar ha samaysanin. raac riyadaada oo tilmaamo meeshaas ilaa aad ka gaarayso, ha joogsanin. waa hubaal qofka riyadiisa u muuqato inaanay xitaa hadduu dab dul marayo dabku aanu danqayn, kaliya wuxuu dareemaya markuu gaaro guushiisa. micnuhu waxay tahay dareen siin maayo meeshuu ku nool yahay. guul baan idiin rajaynaya dhammaantiin. barnaamijka baraarug intaas ayaan ku dhaafayaa. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.